marka toddobaad waxaan ku baranaynaa sida loo sawiro ama loo upload gareeyo datada iyadoo aan isticmaalayno functionka la yiraahdo Fibonacci sequence ama Fibonacci. Hadaan khaldanayn Fibonacci ninkan ayaa loogu magac daray oo wuxuu ahaa nin Italian mathematician inta badan functionka Fibonacci oo MATLAB uu support gareeyo ama loo isticmaali karo waxaa loo isticmaalaa xisaabaadka iyo plottingka markaad rabto inaad wax plot garaysid. Plot waxa la yiraahdaa sawirid. Okay, so marka aan cashirkan markaa toddobaad waxaan ku baranaynaa ugu muhiimsan qaabka datada loo plot gareeyo ama loo sawiro iyo marka aan rabno inaan isticmaalno functionka la yiraahdo Fibonacci. Marka MATLAB-kan tegaya insha Allah waxaan ula baxayaa Fibonacci practice. Faylkan fayl cusub baan samaystay ama fayl cusub baan samaystay waxaana iska clear gareeyo clear CLC. Marka hadda workspace-kaygu waa clear iyo command window qaybtan horaan uga soo hadlay waa command window qaybtan waa editorkii qaybtan waa workspace. Editorka marka code-ka marka aad ku qorto waxbaa ka bedbedeli kartaa dib inaad maanta oo dhan u qorqortid uma baahnid laakiin markaad command window isticmaalaysid code-ka haddaad qorto mar walba inaad mar labaad qorto saddexaad marka waxaa mar walba fiican inaad isticmaashid editorka code-ka waxbaa ka bedeli kartaa waa iska garaysanaysaa. Marka innaga marka hadda editorka faylkana inoo samaysan Fibonacci practice baan ula baxnay. Marka cashirkan toddobaad waxa ugu muhiimsan aan ku baranno qaabka loo plot gareeyo ama loo sawiro data. Tusaale ahaan waxaa haysataa datadan oo kaleeto function variable-ka y oo kale waxaa inoogu jira macluumaadkana inoogu jira. Okay, waxaa inoogu jira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, marka aan run gareeyo workspace waxa isoo gelaya y variable-ka y. Okay, halka haddaan qoro y maxay ila mid tahay y waxay ila mid tahay 1 2 3 4 5 6 datadaas ayaa igu jirta. Okay, marka waxaan rabaa hadda inaan plot gareeyo see u sawirayaa sawir ahaan hadda waan run gareeyey waxba ma arkayo marka inaan sawiro sawirku muujiyo marka waxaan isticmaalayaa functionka la yiraahdo plot. Plotku inta badan 3D maaha waa 2D. Okay, marka waxaan leeyahay plot waxaan plot gareynayaa y. Okay, marka haddaan yiraahdo hadda run okay haddaan yiraahdo run okay error marka muxuu leeyahay invalid data argument. Okay, let's say 1 ilaa iyo 5. Okay, datadu iga diidayay wax kale maahan laakiin hadda waxaa idhaahday 1 ilaa iyo 5. 1 ilaa 5 halkan haddaan ku dhufto y datada waxa weye 1 2 3 4 5 datadaas ayuu y igu kaydsan variable-ka y waxa igu kaydsan 1 2 3 4 5. Okay, marka waxaan rabaa inaan plot gareeyo sawiro. Okay,
marka wuxuu soo qaadanayaa x axis ilaa iyo 5 y axis ilaa iyo 5 marka daatada qaabkaasa loo plot garaya marka waxay noo sahlaya functionka la yiraahdo plot. Okay. marka labeling oo loo samayn karaa x axis y axis tableka magac qaybahaasna waxaan ku baranaynaa casharada soo socda ama casharka tobnaad waan ku baran doonaa oo ah subplotinka 3D functionka iyo wax la yiraahdo leveling qaybtaasaan ku baranaynaa qaybta tobnaad hadda casharka waxaan ku jirnaa casharka toddobaad baa ku jirnaa marka waxaa jira wax la yiraahdo Fibonacci haddaan isticmaalo Fibonacci waa kana Fibonacci function Fibonacci numbers waa sequence numbers marka graph uu ka duwanaanayaa kii hore haddaan rangareeyo okay okay ha Fibonacci haddaan iraahdo Fibonacci wuxuu ii soo saarayaa sequence numbers 1 1 2 3 5 variableka y daatada igu keysaneed 1 2 3 4 5 qaabkaanu u bedelay 1 1 2 3 5 marka Fibonacci haddaan isticmaalo marka waxaan leeyahay waxaan plot garaynayaa Fibonacci of y haddaan iraahdo sidaas aan plot gareeyo soo saarayaa garaaf ka duwan garaafka hore y because of functionkan Fibonacci la yiraahdo inta badan waxaa isticmaala dadka mathematicalka ah ama xisaabaadka iyo waxyaabaha ku shaqada leh marka wuxuu bedelayaa variablekii xogtii wuxuu ka bedelayaa numberskii qaabku ahaaba wax ka bedelaya marka graafkeeni hore 1 ilaa 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 saas laakiin isugu ku duwan yahay variablekeeni 1 2 3 4 5 inoogu keedsanaa y oo inoogu keedsaneed 1 2 3 4 5 wuxuu ka dhigay inay inoogu keedsan tahay 1 1 2 3 5 marka haddii aad isticmaalayso functionkan Fibonacci rabto inaad plot garayso waa inaad intaa qortaa koodhkaas waa inaad qortaa plot Fibonacci y marka hadda haddii aan percentage haddaan ka hormariyo koodhkan lama rangaraynayo marka hadda inooma shaqaynayo koodhkan hadda haddaan iraahdo plot y plot y haddaan iraahdo wuxuu noo soo saaraya plot y haddaan iraahdo wuxuu noo soo saarayaa valuegii saxda hadday ahaa oo iyadoo aan la isticmaalin functionka Fibonacci marka casharkan waxa ugu muhiimsan inaad ogaatid daatada qaabka loo plot gareeyo marka functionka kaa saacidaya waa maxay waa plot baa la yirahdaa functionka waa bedeli karaa daatada kale ku bedelan karaa waxaan dhigi karaa x is equal to let's say 1 ilaa iyo 15 y waxay la mid yahay 2 ilaa iyo 8 marka haddaan rangareeyo hadda waxa ii soo gelaya waa maxay value of x halka haddaan weydiiyo value of x maxay ah
x waxa igu kaysan 1 ilaa iyo 15 so ma jeedid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilaa iyo 15 haddaan y weydiiyo y maxaa igu kaysan 2 ilaa 8 2 3 4 5 6 7 8 marka dhaatada noocaana haysataa dhaatadii waa samaysa see u bolood garaynaysaa marka aad bolood garaynayso sawiraysa maxaa leedahay plot x comma y okay x comma y aan xabad xabad u bolood garayno okay plot x okay plot x x marka muxuu inoo bolood garaynayaa waxaa inoo bolood garaynayaa ilaa 1 ilaa 15 1 ilaa 15 okay aan fiirino marka plot y plot y markaan dhahno plot y muxuu sameynayaa wuxuu sameynayaa 1 ilaa 8 okay 1 ilaa iyo 8 1 2 3 4 5 6 7 8 okay ilaa 8 okay waxaan bedeli karaa variablekan 1 ilaa 15 oo x ugu kaydsan baan bedeli karaa waxaan dhigi karaa Fibonacci okay variableka x la bedelayaa okay 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 hadda plotting waa ka saaray okay haddaan weydiiyo value of x muxuu yahay value of x wuxuu yahay 1 2 3 ilaa 15 marka aan Fibonacci function isticmaalo Fibonacci function markaan isticmaalo oo value of x aan sameeyo aan rangareeyo fiir marka value of x aan weydiiyo wuu bedelayaa value of x wuxuu noqonayaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilaa 15 okay Fibonacci x la sidii ugu shaqeeyo value of x okay marka aan plot gareyno plot markaan Fibonacci isticmaalno graafku bedelayaa okay bedelayaa marka inta badan functionka noocaana Fibonacci waxaa isticmaala mathematicianka xisaabaadka waxyaabaha ku shaqada leh marka casharkan toddobaad oo ku saabsan plotting data using Fibonacci sequences intaasaan kusoo koobaya insha allah hadduu alla yiraahdo haddii aad rabto inaad wax badan kasii ogaatid functionka noocaana raadi Fibonacci MATLAB ku qor waxaa kuu soo baxaya qaybtan mathwaka functionkan qaabka loo isticmaalo macluumaadkiisa oo faahfaahsan oo dhan iyo qaabka daatada loogu represent gareeyo halkanaad ka helaysaa insha allah hadduu alla yiraahdo intaasaa ugu muhiimsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته